Assalaamu calaykum. Laleemada waa xanuun saameyn ku leh unugyada maskaxda kuwooda soo daaya dopamine. Dopamine waa maado kaalin mug leh ku leh dareemo kala duwan sida farxadda, fakirka, ka helidda iyo qorsheynta hawlaha. Haddii unugyada laga soo daayo dopamine dhintaan mise ay hoos u dhacaan waxaa dhaca laleemada oo afka qalaad lagu yiraahdo Parkinson. qofba qofka kale waa uu kaga gedisan yahay calaamadaha Parkinson, laakiin calaamadaha dadka badidooda lagu arko ayaa ka mid ah gariir. Wuxuu ku bilowdaa addinka sida gacmaha mise faraha, dhaqdhaqaaq gaabsan. Talaabada socodka ayaa noqonaysa mid tartiiba ama haddii qofka is yiraahdo kursiga ka istaag waxay ku qaadanaysaa waqti badan. Murqo xanuun, socod xakameyn la'aan, wuxuu noqonayaa qof socodka aan xajisan karin. Cod doorsoon iyo dhabar xoodaaman. Parkinsonka waxa keena lama oga, laakiin waxaa jira waxyaabo qofka u horseedi kara inuu xanuunkani ku dhaco, sida dadka qof ka mid ah qoyskooda xanuunkani lahaa, dadka da'da ah iyo dadka ku nool deegaanada kiimikada lagu filter gareeyo. Xanuunkani waxaa la socon kara xaalado kale oo ka mid ah hurdo la'aan, calool fadhi, niyad jab iyo kuwa kaloo badan. Laleemada wax dawo ah ma lahan, laakiin waxaa jira dawooyin lagu xakameyn karo calaamadaha bukaanka. Sidoo kale saameynta xanuunkani waxaa lagu yareyn karaa qaab qaliin ah